السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وحن mar labaadni hor fadhida anigoo nabad qaba waa walaashin deeqo youtube channelkaad naga daawanaysan waa youtube channelkiini tubta toosan asxaabta inta hore noola soo joogto waxaa leenahay aad baad mahadsantihiin inta nagu cusubna waxaa leenahay walaalani jecel iyo qaamo furan kusoo dhawaada maasha allah qof waliba xilliga u tahay waxaan leeyahay wanaagsan waxaan rabaa caawa aniga su-aal lana soo weydiiyey inaan anigoo ku hadlaya afka dhalinta Soomaaliyeed amba ummadda Soomaaliyeed ee dalka Masar amba Qaahira ku nool inaan jawaabtaas aan bixisho su-aasha lana soo weydiiyey waxay tahay dirisle iyo sameexa xiriirka ka dhaxeeyay xiriir jacayl oo sax ah miya ama seed u aragtaan su-aashaas anigoo raba inaan ka jawaabo ra'yi ahaantayda waxaan leeyahay horta dirisle iyo sameexa jacayl mu ka dhaxeeyaa waxaa la dhahaa horta shayga jacayl la iraahdo inaan fahamsiiyaan rabaa jacayl waxay ka dhigan tahay xidhiidh labada qof ay isla og yihiin wiilka iyo gabadha amba marka hore jacaylka ha soo bandhiga wiilku amba gabadhu ha soo bandhigto laakiinse xidhiidh jacayl waxaa la dhahaa labada qof marka ay sheeka ka dhaxayso ay jacayl yacni isla jilayaan amba arrin ay meel wada dhigteen oy ka midho dhalinayaan jacayl midkaas baa la dhahaa midda dirisliya haddaan usoo noqdo iyo sameexa dirisliya iyo sameexa waa laba qof oo asxaab ah maasha allah laakiinse sidaad ogtihiinba nimanka Soomaalidu wax haddaa loo tilmaamo wixii marka maanta dhan haddaan kuu tilmaamo ku dhaho meesha cuntaan kuu dhigay meeshaas wax fiican baa yaala gabadhaas wallaahi waa gabadh fiican gabadhaas waa gabadh kan ah يعني وحي هدان وناجي كابد بديو عن باشيكدي عن كوجو العليو جاء وحكو جلايا اهتمام وحلا وحكو جلايا إن الاستراحة بالشيء جن أنت صوردن قيمها أنت لجلسية بل ما تجلع دد أقل أما ما تأكد أما ما تكون قاعد مركز دريس لو حلنا هاي horta hadda labadan qof wax jacayl la iraahdo oo horay uga soo dhaxeeyay ma jirto because qof la jecel yahay amba labada qof haduu jacayl ka dhaxeeyo waxaan arki lahayn maalintii ugu horeysay ay sameexa ugu tagtay madaarka amba elaborka ay ka soo wadeysay ninka la dhaho dirisle waad aragteen laba qof oo jacayl ka dhaxeeyo laba qof oo intaas oo dhan mobilka ka wada hadlayay oo qofka kale yacni u sugi laayay maalintu sidaas intuu hab u siiyo halka uu laabta gashan lahaa marka waad aragtaan markii uu dirisle soo degay jawi qabow iskaga soo degay kasto ubax yar oo gadaal lagu khabeeyaa faraha laga saaray dad minis labadan qof walaaltinimo waa qof yacni elborka ka soo degay oo magaaladii aan uga soo horeeyay oo soo dhaweynayo oo halka nooga cadeed marka Soomaaliya waxaan leeyahay aqliga wax wanaagsan inuu wax badan ka fikiro inaad yacni markaad waxaad aragto isla markiiba maskaxdaada aad u gudbiso ma ahin warka la yiriyo waxa bulshada dhex yaala inaad isla markaaba qaado tiraado dirisle iyo sameexa way is jecel yihiin aroosgiina goormu noqonaya invitationka hala naga daayo hoolka goormaad qabanaysiin sameexa goormay toobka soo ibsanaysaa no aniga su-aashii la soo weydiiyey ee ahayd sameexa iyo dirisle jacayl mu ka dhaxeeyaa waxaan leeyahay may jacayl kama dhaxeeyo jacayl ay soo wada jilayeen amba xiriir jacayl oo ay soo wada lahaayeen sameexa iyo dirisle ma jirin laakiinse mid ayaa maanta meesha taala midda meesha taala waxay tahay nin kasta gabadh wanaagsan uu rabaa inuu helo dirisle maanta guur buu joogaa sameexana waa gabadha quruxda badan la dabeecadda wanaagsan leh maasha allah iyadna kulay guurun bay u joogtaayo de ninun bay rajaynaysaa midkii dooni baa noqday qof baa niyadeeda ku jira labadii qof waxbay miisaamayaan marka ay maskaxdu shaqaynayso marka maskaxda miisaamo dirisle ayagaya waxay isleedahay dirisle nin balwad lama ahin waa yarkaa shaqaysanaya waa yarkaa iskeenay waa yarkaa familkiisa iyo dadkiisa wax u qabanaya commentiyo badan markay akhrido waxa la leeyahay dirisle iyo sameexa wad isku soo baxaysiin gabadhii sameexa markay maskaxdeeda ka shaqaysiiso ay wax badan hay isdhaahdo waxa u soo baxaya markii xisaab badan qaraacdo waxa u soo baxaya dirisle inuu noqon karo qof mustaqbalka wax lagu darsan karo waa kow marka labadan qof
inuu yani dirislana dhankiisa uu u xisaabtamo, Sabiixana ay dhankeyga u xisaabtamto oo isdhahdo dirisla wallaahi qof nolosha lagu aamini kara miyaa. isna sidoo kale intaa ay su-aalood ay Samiixa isweydiinayso iyo inka badan buu isweydiinaya. wuxuu isleeyahay hadda ka hor waadigii bulshada u sheegay amba dadka kugu xiran team dirisla waadiga u sheegay dhahay aniga ha iga sugina inaan xiriirkayga nii soo bandhigo, hana iga sugina gabadh social media ku dhex jirta inaan guursado. dirisla hadda ka hor wuxuu noo sheegay inuuna xiriir xitaa jacayl hadduu sameeyo inuu wixiisa noqon doono wax bareefad ah. waa kow taana xisaabta ku darsada oo isdhaha dirisle waa ninkaa dhan ee dee qowl kale shalay wuxuu nagu dhahay aniga xitaa xidhiir jacayl haddaan sameeyo amba qof haddaan jeclahay arrimahaygaas bareefad bay noqon doonaan, mediyaha ma keeni doono. waa kow dirisle taabaan ka haynay. midda labaad ee meesha taalla waxay tahay dirisle inta ay xisaabtamayso Samiixa oo kale u xisaabtamaya. wuxuu isleeyahay wallaahi haa Samiixa waa gabadh qurux badan, Samiixa waa gabadh wanaagsan, waa gabadhaas aad arkaysiin de maasha Allah oo hadda yani shaqooyin badan meelo looga yeedhay, waa gabadh mustaqbal wanaagsan samayn karta, waa gabadh haddaad hadhow wada shaqaysataan yani aad shaqadii xitaa isla wadaagi kartaan. dirisle isna noloshii Samiixa meel buu ka daawanaya TV camal oo kale. kolba wax markuu arko sax buu siinaya, kolba wax kale markuu arko sax buu siinaya, wax kale markuu arko sax buu siinaya. markuu waxyaabo badan oo sax ah ka arko wallaahi wuxuu isleeyahay dirisle laftigiisu Samiixa ma xumo oo qof social media ku dhex jira hadduu qofku de qof wanaagsan yahay xidhiidh waa lala samayn karaa, nololna waa lagu aamini karaa. dirisle isna taabuu ka fikiraya. marka labadan qof oo qofba qofka kale wanaagiisii markuu ururiyay uu isleeyahay nolol waad ku aamini kartaa baan inaguna u sacabatumeyna. maanta dhan waxaan leenahay miyaan gama hawaysta habeenkii la-aanta. heestaa baad u shidaysaa de qof heestaa loo shiday walaal oo muusigii iyo heestii dhadhankeegii qaaday waxay is leedahay may wallaahi dirisle la-aantii inaad meel seexato ma wanaagsano. marka dhalinta waxaan leeyahay asxaabey dirisle hadduu gabadha jecel yahay iyo Samiixa haddayba dirisle iyadu jeceshahay, labadooda waxa jacaylkaas ku abuuray waa inaga bulshadeena ku abuurnay. qofkana goormuu jacayl ku abuurmaa? jacaylku wuxuu abuurmaa markaan aniga qofka wanaagiisa tirada badan la raadiyo, markaan dha walaa qofka halkan buu ka wanaagsan yahay, qofku halkan kale uu ka wanaagsan yahay. anigoo usoo noqonaya su-aashii lana weydiiyey ahayd dirisle iyo Samiixa jacayl ma ka dhexeeya? may baan leeyahay. dirisle iyo Samiixa waa dad asxaab ah oo isfahmay oo shaqa isku dartay. soo had garateen maaha? shaqa isku dartay, waa dad wada shaqaysanaya, waa dad raba inay yacni Soomaalida ay ka faraxsiiyaan, wax cusub ay noo soo bandhigaan oo ku dayasho leh sida hadda aan aragno oo youtuber badan ay ugu daydeen. horta mid maasha Allah wanaaga ay Samiixa iyo dirisle sameynayaan dhalin badan baa ka faa'iidi doonta, qaar badanna way isguursan doonaan insha Allah oo halkaa guryo Soomaaliyeed oo muslimiin oo qoysas ayaa soo biiri doona. dee kuwo kalena waxaan leeyahay indhahana daalo intii aanan waxba hayninna dee iniga inagu maqan tahay. waxaan leenahay ilaahay isha hani garab mariyo. waxaan leenahay jacayl hore usoo jiray ma jiro, laakiin jacayl cusub oo hadda la aasaasayo markii la isku imid ayaa meeshaas ka abuurmaya. jacaylka cusub ayaan anaguna aan biyo dhigaynaa miyaa la dhahaa mise jacaylka cusub ee la beeraayo baan anaguna hadda biyaha aan ku shubaynaa. waxaan leenahay geedka jacaylka ee hadda la rabo in Nairobi lagu beero, markii hore jacayl ma jirin, qof kastiba meeshiisuu joogay. marmar waa kaad maqashayna 2 bilood baa la kala aamusayay, marmar 6 bilood la islama hadlayn. marka waxaa wanaagsan qofka qowlka hore uu niisoo leeyahay inaad dhadhansataan, inaad istiraahdaan. jacayl gabdhaha intii la weydiiyey su-aalaha dhanka dhalinta Nairobi dhammaantood waxay wada dhexeen xiriir jacayl baa ka dhexeeya. no baan leeyahay Samiixa iyo dirisle xiriir jacayl kama dhexeeyo, laakiin hadduu wax jacayl la iraahdo u bilaabmaayo hadda iyo kow ayuu u bilaabmi doonaa. jacaylkana waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa insha Allah. waa jacayl wuxuu noqon doonaa laga midho dhaliyo, meeshii la rabay gaadha, awlaad qurux badan oo Samiixa u eeg iyo dirisle u eegna ay kasoo bixi doonaan. waxaan leenahay dhalintii kommentiyada qurqurux badan kusoo qortay dirisle iyo Samiixa way isku qalmaan. inagana aad baad u mahadsantihiin. qoyska aan arkayna ee dhismi doono mustaqbalka inaguna qayb ayaad ka tihiin baan leenahay. ducadiina iyo dee
ficilada wanaagsaneed keenaysaan oo u ka abuurmaya halka inay labadii qof isku soo dhawaato. videoga ma rabo inuu dheeraado, hala gaarsiiyo Samiixa. Dirisle ayaan rabaa inaan halkan anigu aan wixii aan naftayda dhihi lahaa amba wiil walaalkay aan dhihi lahaa inaan dhahaan rabaa. Dirislow waan aragnaa maskaxdaada haddii Samiixa ku jirto oo su'aalaha badan ee isweydiinaysa ay tahay Samiixa mustaqbal ma laga dhigan karaa, gabadh social media ku jirta mustaqbal ma laga dhigan karaa. haa, gabadhu haddii social media ku jirto iyo haddayba ku jirin, shayga wanaaga oo qofka naftiisa amba dabeecadiisa qofka isma bedelo. Samiixa hadday 20 sano oo dambe social media hadday ku sii jirto sida ay maanta tahay inay ka sii wanaagsanaato moojaane inay ka xumaanayso uma malayno. marka aniga fariinta aan Dirisle u diraayo waxay tahay, Dirislow adaanina adayna wax ka go'aan, waxaan ku leeyahay gabadha u sheeg, familka ka doon, waxaan ku yiri adigoona Samiixa qacantaada midig hanad ku ogaanin Kenya amba Nairobi haddaad ka tagto, de waxaan ku yiri nicmadi way ku dhaaftay. videoga inta waan kaga baxayaa, aad baad mahadsantihiin. videoga haddaad halkan soo gaadhay, like noo saar, dib u noqo, subscribe na noo dheh haddaanad channelka weli subscribe noo saarin, fadlan la wadaag asxaabtaada. aad baad mahadsantihiin. wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu.